bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa ogaalka midiya waxaad ku soo dhawaataan barnaamijyadeena qodobada ugu waaweyn ee aan daawadayaal ku soo qaadan doonana waxaa ka mid noqonaya maxay tahay sababta ku kalifaysa saraakiisha ciidanku in ay ku biiraan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya falaqeynaya daawadayaal ku sameyn doona xasan cali khayre ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya waxaa lagu eedeynayaa kala qaybin qabiil warar ayaa sidoo kale daawadayaal idinkaga falaqeynayana ku sameyn doona kala firxadka kooxda Villa Soomaaliya sidoo kale daawadayaal waan idila wadaagi doona hayeeshee inta aanan guda gelin waxaan daawaday ka dalbanaya oo ka codsanaya muuqaalkan like saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saaraya channelka oo furanaya gambalaalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag markaana daawada waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarkaa soo daawatay oo intaasi ka sii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya maxay tahay sababta ku kalifaysa saraakiisha ciidanku inay ku biiraan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga qaranka oo loo soo gaabiyay NDP oo ah xisbiga kaliya ee ka jira Soomaaliya ee hogaamisa haweeney Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan ayaa nasiib daro weyn ku tilmaamtay in saraakiishii ciidanka ay u kala ordayaan ku biiritaanka baarlamaanka habdhaqankan ku soo kordhay siyaasadda sanadkan ayay u sababaysay shaqo la'aanta ku habsatay saraakiishii khibradda lahaa kuwaasi oo iyaga oo jooga sifo ka baxsan xeerarka ciidanka lagu dul darajeynayo dhalinyaro la doonayo in si gaar ah loogu adeegto waxayna tallaabadaasi ku tilmaamtay qalad weyn waa qalad in nin korneel ahaa 20 sano wiil yar oo dhali karo la yiraahdo generaal baatay oo laga dulmariyo ciidanku wuxuu ku shaqeeyaa moral iyo ixtiraam nasiib daro korneeladii iyo jananadii maanta baarlamaanka ayay u cararayaan sababtoo ah shaqo looma dhiibayo ayay tiri Fawziya sanadkan ayaa la filayaa in saraakiishii ugu badnaa ku biiraan baarlamaanka waxaana durba la xaqiijiyay ku dhawaad 5 janan halka tobaneeyo kala diyaar u yihiin baratanka kuraasta dhiman saraakiil ka tirsan NISA ayaa si weyn uga dhex muuqan doona kuraasta bishan la qorsheeyay in la doorto ogaalka media ayaa fahamsan in kooxda farmaajo doonayaan in inta badan saraakiisha u adeegaysa 5 sano ee la soo dhaafay u raadiyaan kuraas baarlamaan si ay u helaan xasaanad maadaama ay gabood fal xoogan geysteen intii ay xilka hayeen halka kuwa aan 5 sano shaqo qabanna nolol ka raadinayaan baarlamaanka Fawziya Yuusuf Xaaji oo haweeneydii ugu horeysay oo si rasmi ah ugu dhawaaqda in ay tahay musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya doorashada la filayo in ay ka dhacdo sanadkan ayaa sheegtay in sida hadda wax ku socdaan ay sababi doonto in AMISOM aysan ku bixin xilligii loogu talagalay Fawziya Yuusuf waxay hore u soo noqotay wasiirka arrimaha dibadda iyo ra'iisul wasaare xigeenka Soomaaliya intii u dhaxaysay 2012 ilaa 2014 xilligaasi oo uu dalka hogaaminayay madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud masalan in haweeney qabato jagada ugu sareysa dalka Soomaaliya marka loo eego dhaqanka soo jireenka ah ee soo tixna tan iyo markii la yabayay dawladnimada Soomaaliya 60 sano ka hor markaana daawadayaal haddana eegno ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxaa lagu eedeynayaa kala qaybin qabiil musharax xildhibaan Mukhtaar Sheekh Xuseen Jimcaale oo ka mid ahaa musharaxiintii kursiga hoob 49 ayaa ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre ku eedeeyay in uu hor istaagay baratar rasmi ah oo loo galo kursigan deegaan doorashadiisu tahay Dhuusamareeb Mukhtaar Sheekh Xuseen wuxuu sheegay in Khayre Dhuusamareebgii nabadoon Maxamed Xasan Xaad kaasi oo erga gaara u qoraya Mustafa Dhuxulow kaas oo uu sheegay in uu erga gaara u qorayo Mustafa Dhuxulow oo loo xiray kursiga hoob 49 Mustafa Dhuxulow ayaana kursigaasi soo qaatay boob iyo dhac bareer ah ayaa lagu sameynayaa kursiga aan u tartamayay waxaana ka dambeeyay ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre isagoo ka faa'iideysanaya fursadii uu ka helay qaranka kuna dhibaateynaya beesha uu ka dhashay ayuu yiri Mukhtaar madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa Khayre mas'uul ugu dhigay maamulka kuraasta reer Ceelbuur ee taalo Dhuusamareeb maadaama uu Khayre mas'uul ka ah in Qoorqoor qabto hoggaanka Galmudug musharaxiin kale oo ku jiro Ibraahim Dheere
ayaa dhowaan ku dhawaaqay in ay isaga hareen u tartanka kuraasta uu maamulkooda hayo Kheyre kadib markii loo xiray shakhsiyaad gaar ah. dhanka kalena daawadayaal haddaan eegno jahwareer kooxda Farmaajo ayaa waxa ay joogtaa kala firxad. xogo hoose ayaa sheegayay in jahwareer xoogan uu soo wajahay kooxda qaabilsan ololaha Farmaajo kadib socdaalkii ra'iisul wasaare Roble iyo xubno ka tirsan musharaxiinta mucaaradku ku tageen Imaaraadka. ila loo qaateen oo ay ku jiraan shakhsiyaad u dhundulay xogaha xafiiska Farmaajo ayaa tilmaamay in bartamihii toddobaadkan madaxtooyada la gaarsiiyay waraaq ka timid safaaradda Qatar taas oo Fahad iyo Farmaajo loogu sheegay in ay wax ka bedelaan sida ay u wadaan ololahooda. sida aanu hore u baahinay, Farmaajo si degdeg ah ayuu ugu yeeray Qoorqoor iyo Laftagareen si uu la meel dhigo doorka ay ka qaadanayaan dib u doorashadiisa riyo maalmeedka ah. ha yeeshee jiritaanka kala aragti duwanaan xoogan ayaa soo ifbaxday. warka Qatar ka yimid oo dulicdiisu ahayd in kooxahan loo difaaco kursiga ugu sareeya dalka si uusan uga bixin gacanta kooxda ay maalgeliyeen 2017 ayaa lagu sheegay in xitaa la bedeli karo musharaxa kooxda Farmaajo haddii aysan jirin fursad uu mar kale bulshada uga gudmi karo. qodobkaasi wuxuu sababay in madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor uu kooxda ololaha la wadaago in uu ku jiro damac madaxweyne isla markaasna uu la imaan karo codad badan maadaama uu door muhiim ah ku leeyahay doorashooyinka dadban. dooda Qoorqoor oo aan filawa ahayn maadaama xanta damaciisa ee hore suuqa ugu jirtay ayaa garab ka helay gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ka mid ah shakhsiyaadka u ololeynaya dib u doorashada Farmaajo wuxuu Qoorqoor u soo bandhigay ra'iisul wasaare haddii uu mar kale ku guuleysto xilka madaxweynaha halka uu Laftagareen u ballan qaaday in uu ka dhigayo gudoomiyaha baarlamaanka 11aad. ha yeeshee labaduba waxay muujiyeen cagajiid. Laftagareen wuxuu kulamo hoose la qaatay Xasan Cali Kheyre isbuucan wuxuuna wadaa dadaal uu doonayo in uu dib u nooleeyo cilaaqaadkii Fahad iyo Kheyre oo aan aragti ahaan aad u kala fogeyn. Fahad kama diidsana Kheyre ayuu yiri sargaal ka tirsan Nisa. jahwareerkan ayaa imaanaya xilli madaxweynaha Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Gudlaabe uu ka biyo diiday fariin ka socotay xafiiska Fahad oo ay toddobaadkan Jowhar ugu geeyeen saraakiil uu hogaaminaya Cabdiraxmaan Dheere taas oo la xiriirtay fududeynta boobka kuraas gaar ah. Qatar oo saameyn xoogan ku leh siyaasadda Soomaaliya 5 sano ee la soo dhaafay ayaa dareensan in kal doorasheedkan ay cadaadis xoogan kala kulmi doonto dalalka Imaaraadka, Sacuudiga iyo Masar oo xiriir soo jireen la leh dowladda Soomaaliya. fariinta ay bartamihii isbuucan gaarsiiyeen madaxtooyada ayaa muujinaysa in aysan jacayl gaar ah u qabin Farmaajo ay doonayaan in ay taliska ku hayaan shakhsi uu Fahad Yaasiin wado kaas oo xitaa noqon kara shakhsi hadda ka soo horjeeda. ha yeeshee dhaqaale xoogan lagu xirigeliyo. madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu eedeynayaa in ay qalqal amni ku hayso doorashada dalka. hogaanka fashilmay ayaa qalqal dhanka amniga ku haya doorashooyinka dalka ka socda iyadoo ujeedkuna yahay in uu boobo qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka. khubarada sida weyn ula socda arrimaha dalka ayaa sheegaya in madaxtooyada Soomaaliya ay soo kordhisay walaac laga qabo amniga waxaana ciidamo si toos ah ugu xiran Farmaajo iyo Fahad laga dejiyay qaar ka mid ah goobaha ay doorashadu ka dhaceyso. beledweyne ayay ciidamo geeyeen dabayaaqadii bishii aynu ka soo gudubnay iyagoo sidoo kalena ciidamo kale oo ku daabulay magaalada Barabe taas oo hor istaagaysa in dadku ay doortaan dadkii ku matali lahaa baarlamaanka soo socda. khubaradu waxay hoosta ka xariiqeen in qorshahan uu fashilinayo doorashada oo haddaba ku socota hannaan boob ah waxaana dalka Turkiga oo tababaraya ciidamada la adeegsanayo badankood ay ugu baaqeen in uu soo farageliyo arrintan. cabsida laga qabo madaxtooyada ayaa lagu macniyay mid u dhiganta tii kooxda Al-Shabaab oo hore u ballan qaaday in ay amniga doorashada qalqal gelinayaan. khubarada ayaa ku sifeeyay arrintan kalsooni darro haysata Farmaajo iyo la taliyihiisa eedeysan Fahad Yaasiin kuwaas oo si buuxda uga warqaba in aan dib loo dooran doonin maafiyada ku xiran Qatar waana kuwa hadda awood ciidan adeegsanaya. faragelinta qaaban ee Villa Soomaaliya ku hayso doorashada dalka ayaanan cidna ka daasooneyn iyadoo doorashada iminka socota ay tahay tii ugu musuqa badneed ee dalka soo marta
waana taariikh meel ugu qoran hoggaanka waqtigiisu idlaaday. guud ahaan daawadayaal waa nageynta barnaamijyaadka channelka ogaalka media aan ku leenahay YouTube-ka. haddii aad daawatay like inoo saar, subscribe inoo saar channelka furaga malka si durbadiiba aad u heshay muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiya commentiga aragtidaada inagula wadaag. tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal inta dib isugu kulmi doono nabadgelyo.